الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ولا ليال waxaan ku soo jirnay casharkeeni ku saabsanaa xishoodka iyo in Ilaahay subhanahu wa ta'ala laga xishoodo iyo qofkii xishooda in uu Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka xishooday. waxa kale oo aynu ku soo jirnay axaadiistii aynu sharaxnay oo ku saabsanaa xishoodka. waxa la yiraahdaa qofkii Ilaahay ka xishooda ummadana uu ka xishoodaa, qofkii ummadda ka xishoodana waa qof macnaha qofkii Ilaahay iyo ummadda ka xishoodana waa qof xishoodkiisu uu wacan yahay. waxa kale oo dhahaa qofkii xishoodka laasima ama xikmad ayaa waxay tahay qofkii xishoodka laasima wuxuu waxa loo hadiyeeyaa cifaaf iyo dhowrsoonaan. qofkii Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka xishooda qofkaas waxa la siiyaa dhowrsoonaan oo qofkaas dhowrsoonaan ayuu helaa. qofkii xishooda sidaas oo kale ceebtiisu way qarsoonaataa, maxaa yeelay qofka hadduu xishoodo badanaaba ceebihiisa waxyaalahaas geli maayo, maadaama uu yahay qof waxyaalaha kale ka xishooda. macnaha ceeb wax ka sokeeyo qofka hadduu ka xishoodo dee waxyaalihii weynaaye ceebahana dee isna wuu ka xishoonayaa. markaana qofkii xishooda qofkaas Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ka fogeeyaa ceebaha, ama qofkii xishooda ceebihiisu ma soo baxaan oo ma soo daahiraan oo dadka uma muuqdaan weeye. xishoodku waa wax diin iyo dhaqan ahaan iyo raganimo u soo jiray. maaha dad far badan baa waxay moodayaan xishoodku inay diinta kaliya oo tahay. maaha raganimada xitaa raganimada way ka mid tahay xishoodku. oo raganimadu dee maanta afka laga sheeganayo qof kasta wuxuu dhahayaa anu rag baanahay, kii salaada tukanayay, kii quraanka akhrinayay, kii meelaha badboodayay, kii Ilaahay subhanahu wa ta'ala caasiyay, kii qoriga sitay, kii ninka weyn iska dhigay, kii macnaha sharaf kasta mid kasta oo leh maanta wuxuu iska dhigayaa macnaha mid xishoonaya ama mid ragnimo sheeganayo ayuu iska dhigayaa. laakiin ragnimadooda waxay soo baxdaa ficilka ayay ku soo baxdaa. oo qofku markuu naftiisa casiis ka dhigo uuna Ilaahay subhanahu wa ta'ala caasiin ama ha ahaato shay dunyawi ah isagoo adduun raadinaya Ilaahay uuna ku caasiin, hadduu adduunyadaas helo uu Ilaahay subhanahu wa ta'ala daraadii uga tagayo waxaas adduunyada haddii ay tahay wax diinta iyo sharciga khilaafsan, ama Ilaahay subhanahu wa ta'ala adduunyada ama waxyaalo kale oo bini'aadanimada ah. maxaa yeelay qofka waxa laga yaabaa inuu ku amro xumaan, inuu ku amro. markaana nin macnaha qof xumaan ku amraya oo bini'aadan ah adna hadii aad qaadanaysid ama adoona u noqotid macnaha qofkii xumaanta hadduu ku amray qaadid adoon baa u noqonaysaa Soomaa. markaana qofkaas waxa laga yaabaa kuwa far badan oo qof soo amray ama qof soo waalay in ay iska dhex dabaashaan oo raganimadooda ay tusin in macnaha ay diidaan qofkaas ay amarka ku diidaan, ay ku gacan saaraan ama ay ku dhahan war adigu bini'aadan baa tahay nagala tag. markaan kuwaas oo meel waxa laga yaabaa raganimo inay sheegtaan. waxa kale oo laga yaabaa raganimo inay sheegtaan dad gabdhahoodii iyo xaasaskoodii iyo dadkii mas'uul ka mid ahaa ka ahaayeen ay qaawan yihiin oo aan xishoonayn. waxa laga yaabaa iyaguna inay raganimo sheegtaan. markaana raganimadu waxa weeye waa ficilka iyo qofkii inuu diintiisa ku dhaqmo. markaana dadkii hore xitaa bilaadiinta carabta ahaa bilaadiinta waxa laga sheegaa inay soo raaceen nin iyo xaaskii maalin ay suuqa ku soo raaceen. markay suuqa ku soo raaceen ba gabadhii baa nin bay la yaabtay, ninkii bay eegtay, way eegtay sidee u eegisay. markaan isagii baa xanaaqay, wuxuu yiri ninkii qabay ee la socotay baa xanaaqay, wuxuu yiri macnaha de maxay aniga ii eegi weyday oo ay ninkin u eegisaa wuu yaabay. marka raganimadiisii iyo qiiradiisii iyo macnaha ayaa waxay tustay in macnaha de raganimadiisii ayaa kacday. markaana wuxuu yiri orod anu waan ku faray meel doonti aad, maxaa yeelay dubaabku tuqsigu hadduu cunto ku dhaco macnaha anugu ma qaato. soo ka wada macnaha de qofkaas in ninka maadaama ay eegtay, maadaama isagoo ka wada maadaama aan ninka la u leexatay anugu waxaas ma qaatay iska tag. macnaha hadarna waxa laga yaabaa in gabdhihii ay sawiradooda moobiladooda ay sawiro niman ka buuxaan oo ay niman iska raacayaan, ay waxay doonaan iska daawanayaan ba hadarna inta badan. laakiin raganimadu sidaas ma aha. raganimadu waxa weeye weligeed waa mid soo jirtay diiniin oo kaliya ma aha. raganimo waxa weeye
mid soo jirtay xishoodka raganimadu xishoodka way ku tusaa raganimadu qofka raganimada badan wuu xishoonaya oo xishoodnimadiisu way soo baxaysaa marka raganimadu waxa weeye taas ficliyan u muuqata qofku uu xishoonayo oo ciyaalkiisa iyo xaaskiisa iyo gabdhiisa uu la xishoonayo weeye maaha laakiin mid macnaha afka laga sheegto sida maanta badan hadaynu ku bilowno xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam kamid ah Abdullah ibn Mas'ud ayaa xadiiska warinaya wuxuu leeyahay rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri istahyu min allahi haqqa al-haya'i ilaahi subhanahu wa ta'ala waxa ka xishootaan xishoodka dhabta ah marka hore xishoodka dhabta ah ilaahi subhanahu wa ta'ala ka xishooda hadhow asxaabtu waxay ku yiraahdeen ama qaar kamid ayaa waxay ku yiraahdeen anagu ilaahi subhanahu wa ta'ala waanu ka xishoonaa ay ku yiraahdeen laysa dalika nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri kaas maaha xishoodka ka sheegaysaan kama wado mana aha nabiga sallallahu alayhi wasallam uu fahmaya jawaabtooda uu fahmaya nabiga sallallahu alayhi wasallam maadaama uu waxyi iyo cilmi uu ilaahay subhanahu wa ta'ala siiyay marka nabiga sallallahu alayhi wasallam uu fahmaya wuxuu ku yiri xishoodka kaas maaha walakin waxa weeye man istahya min allahi حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى marka hore qofkaas ilaahay subhanahu wa ta'ala ka xishoonaya wuxuu sameeynaya فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وليذكر الموت والبلى ومن أراد الآخرة ترك السينة الدنيا من فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء nabiga sallallahu alayhi wasallam sidoo uu sheego oo ugu turjumo u fahansiyo taw nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri mayet qofkii ilaahay subhanahu wa ta'ala ka xishooda xishoodka dhabta waxa weeye qofka ilaaliya madaxa iyo wixii uu koobo ama waxa ku wareegsan iyo madaxa qofkaas waa inuu ilaaliya oo waa inuu xifdiyaa وإنه عندها إلالية وإنه سنك إلالية وإنه أفك إلالية وإنه عربك إلالية وإنه دجها إلالية وإنه فكر كحتا إلالية تصالحان وحوية قفك وإنه عندهاس وحرانة وكؤجن نبي صلى الله عليه وسلم وحو حرانتني ميي وإنه كأجن سنكيساس وإنه كأرسن وحرانة وإنه كأرسن tusalahan de gabadh soo udgoonisay hadaa u horstid de waxbay waa xaraan soomaha markaana sankaas inaadan ku ursan afkaaga inaadan gelin ama inaadan ku cunin wax xaraan ah carabkaaga waa inaadan ku hadlin wax ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka xaraantinimay dhagahaaga waa inaadan ku dhageysan wax ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku diiday oo ay kamid yihiin heesihii iyo hadalkii xumaa iyo xantii iyo caydii iyo beentii iyo waxyaalihii la walaaqanayay hada waxa la dhahaa qofka macnaha qofka dadka xamanaya iyo ka dulmiga sameeynaya iyo ka balaayada sameeynaya isaga laftirkiisu kala fadhiya ee iska aamusan waa shaydaan akhras waa shaydaan dagala isaga laftirkiisu dambiga iyo balaayada uu ku leeyahay macnaha qofku waa in uu ama meesha isaga kaca ama meesha waa inuu isaga kaca meesha xumaanta laga hayo ama waa inuu qofku u jidaawo ku dhahaa afti waxaas waa xaraane iska jooj waa inuu ku dhahaa ama waa inuu meesha isaga kacayo oo isaga tagaa oo ilaahay subhanahu wa ta'ala meesha lagu caasinayo waa inuu isaga tagaa markaana waa inuu ilaaliyaa dhagahaya wixii kooba waa inuu ilaaliyaa fikirkiisa waxa ku soo dhacaya inuu ku fakaro xumaan ku fakaro waa inuu ka ilaaliyaa inuu khitad iyo inuu u takhtiidiyo macnaha inuu hawlgal iyo mission iyo waxa fuliyo oo uu fuliyo qof muslim ah iyo qof mu'mina ama dad muslimiina inuu macnaha khiyaameeyo ama inuu xarka u dhigdhigo ama inuu macnaha iyaga uu ku maqan yahay inuu dhaawacayo waa inuu fikirkiisa inuu ka ilaaliyaa oo uu ka ilaaliya weey waxa soo galaya xitaa waa inuu ilaaliya sharbaha waa inuu jara nabiga sallallahu alayhi wasallam sidoo uu sheegay gadka waa inuu sii daaya waa inuu nabiga sallallahu alayhi wasallam waa inuu sheegay waa inuu waxyaalaha ilaaliya timahaas indhaha iyo kuwa ka sareeya indhaha iyo kuwaas ka hooseeya kuwa indhaha ku jira laftirkooda waa inuu iska daaya oo waa inuu ku ciyaarin dhagaha laftirkeeda nimo far badan baa dhagaha dalashado deedaha bay gashtaan samaha markaa dhagaha waa inay ilaaliyaan dhagaha waa inay dahab iyo waxa gashan adigu intaas qofku waa inuu ilaaliyaa kow walbadna wama hawa iyo waa inuu ilaaliyaa qofkaasu calooshu iyo waxay koobtay caloosha
iyo farjiga iyo farjiga waa inuunan xaaraan ku sameyn, waa inuunan tinsina iyo waxyaalaha la mid ah waa inuunan ku sameyn, gacmaha laftirkooda waa inuu ilaaliyaa, markaana waa inuunan xaaraan cunin oo xaaraanta wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ka xarimay maalkii oo uu maalku ugu badan yahay waa inuu qofkaas iska ilaaliyaa. labadaas qofkaas hadduu ilaaliyo lugihii oo ka mid ah iyaga laftirkooda waa inuu ilaaliyaa oo xumaan uunan ku socon. markuu intaas sameeyo waliyadkuri ilmowt, qofkaas waa inuu mowdka xasuustaa, geerida waa intaas markasta waa inuu geerida xasuusan yahay, markasta waa inuu waad dhimanaysaa, qabri baad gelaysaa, waa lagu xisaatamaya. xitaa qofku inuu ku fakaro oo isagoo dhimanayo ku fakaro, oo isagoo macnaha qabrigii la gelinayo ku fakaro, oo isagoo su'aalihii la weydiinayo ku fakaro, oo isagoo marna jannada la gelinayo oo jannada ku raaxaysanaya, marna naar la cadaabayo waa inuu ku fakaraa, isagoo yawmal qiyaamaha soo baxay oo la xisaabinayo oo maalintii kululayd oo jidsiyaad la marayo oo dadkii macnaha ajaradoodii iyo xumaantoodii la qaybsiinayo ama la siinayo, loo qaybinayo. waxaas oo dhan waa inuu ku fakaraa qofkaas. markaana tadakkurul mowt, markaana geerida in lagu fakaro waxay leedahay faa'iidooyin aad iyo aad u fara badan. qofku hadduu ka fakaro soofa iyo waxaas wuu iska deenayaa oo wuxuu sameynayaa isla markiiba wuu camal falanayaa oo beri baan camal falanaya iyo saadaba camal falanaya iyo waxaas wuu ilaawayaa oo wuxuu sameynayaa isla maanta ayuu ka bilaabaya. wuxuu dhahayaa qofkaas markuu geerida in badan xasuusto, ana asuumu al-yawm wa usalli al-yawm wa aqra'u al-qur'ana yawm wa adiicu Allah al-yawm. maanta isla maanta ayaan soomayaa oo isla maanta ayaan salaada tukanaya oo isla maanta ayaan quraanka akhrinaya oo isla maanta ayaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala adeecaya. macnaha wuxuu qofkaas ka fogaanayaa sida dadka qaar ee iimaankoodu yar yahay in ay dhahaan takhdiid inay sii dejistaan oo ay dhahaan anagu sanadkaasaan toobadkeena, bilahaasaanu toobadkeena, xilligaas ayaanu toobadkeena, xilligaas waxaas ka badbaadaysaa. waxaad dhahaysaa anigu isla hadeer ayaan toobadkeenaya. qalbiga wanaagsan laga rabana waa qalbigaas. qalbiga la doonayo in ilaahay subxaanahu wa tacaala caabudana waxa weeye waa qalbiga isla hadeer sameynaya wixii looga baahan yahay. qalbigaasaana iimaan leh. laakiin qalbiga kale ee dhahaya anigu hadhow baa toobadkeenaya iyo waxaasaan sugaya iyo waxaasaan rabaa iyo waxaasaan ogaanaya iyo waxaas, waxa weeye waa qalbi shaydaan ku neefsaday. qalbiga shaydaanku ku neefsadayna soofa iyo waxaas ka buuxda. marka qofkaas macmacaanka adduunka ku tagaya oo mowdku qofku in xasuusto waxay leedahay qofkaas faa'iidooyin far badan oo qof ilaahay subxaanahu wa ta'ala u jeesanayo weeye. qof ilaahay subxaanahu wa ta'ala u jeestay ayuu noqonayaa. macnaha camalkiisii iyo qalbigiisii iyo ficilkiisii wuxuu ku mashquulinayaa qofkaas ilaahay subxaanahu wa ta'ala iyo daarul aakhirah iyo aakhirah inuu u jeesto xagga uu qaabilo. waxaa kaloo la dhahaa qofka geerida xasuusta ee geerida xasuusnaanteeda badiya qofkaas lama xaasido. horta qof kastaba waxa laga yaabaa in la xaasido, laakiinse waxa laga wadaa xitaa hadii la xaasido in aadan fursad lagu helin oo aan xaasidnimo lagu helin. dee qof markasta masaajid ku jira oo quraan akhrisanaya oo ilaahay caabudaya ayuu noqonayaa qofka geerida badiya. markaana qof macnaha inta sameynaya dee qof fursad ku helaya xitaa ma jiro ama xaasidnimo ku dhacsa ma jiro. markaana qofkaas wuxuu galayaa dhufays aad iyo aad u weyn. waman araada al-aakhirata taraka siinata ad-dunya. hada min hayth al-maqal, min hayth yani inuu isagoo nabiga sallallahu alayhi wasallam uu ka sheekeynayo ama ilaahay nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ka sheekeynaya wuxuu ku leeyahay qofkii adduunyada qofkii aakhiro doona adduunyada dhalaalkeeda uu ka tagaa. macnaha waa sidaas. macnaha hadii aad aragtid qof adduunyada dhalaalkeeda ka tagay waa qof aakhiro doonaya. hadii aad aragtid qof aakhiro doonayana waxa aragtaa qofkaas adduunyada dhalaalkeeda inuu ka tago arag. marka adduunyadu qof kastaba inuu u shaqeysto waa shay banaan oo sugan oo diinteena ku sugan. laakiin waxa weeye adduunyada aan helin, adduunyada ka jeesatay, adduunyada aan fursad u hayn, adduunyada macnaha aanan ahayn ina xaraan ku qaadatid maahanay aanan si kale aadan ku heli karin. adduunyada
aad ummad u dhaawacasid dunuub iyo macaasi u gelisid adduunyadaas weeye adduunyada lagu diidayo adduunyada xaq ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ku leeyahay ka mashquulinaysa weeye macnaha qofka isagoo aroortii shaqaysta ayaa waxa lagu dhahayaa salaada casar bay shaqadu bilaabanaysaa salaada casar adduumaad iyo qiimaadaba shaqada waa inay joogtaa shaqadaas doonaya inuu galo bal qofkaasu salaadii casar adduumaad iyo qiimaadii aroortiina wuu shaqaystaa lacag uu haystaa hanti uu haystaa kawdhe shaqo kalena uu raadinayaa adduunyo kale uu raadinayaa Soomaha markaana waxay ku mashquulisay salaada casar iyo salaada maghrib ayay ka mashquulisay jamaacas qofkaasi miyuu yeelay qofkaasi haduu yahay mid ilaahay doonayo aakhiro wuxuu dhahayaa maya anu waxaan sameeynaya ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaan cibaadaystayo de salaadihi ma doonayo jamca in iska daayo oo ina ka hamsaamo markaana waa sidaas qof hanti haystaa waxbuu haystaa wax kale uu doonaya waxaas wuxuu og yahay in xumaan iyo balaayo iyo dulmi iyo qof wixiisa ka qaad ama salaad ka dah oo salaadan jooji iyo waxyaalahan khayrka samee qofkaas intaas doonaya Soomaha qofkaas haduu waxyaalaha doonayo waxyaalahaas kuma heli karo in illa waxyaalaha dunubta uu leeyahay Soomaha uu leeyahay markaan qofku markuu arko in waxaas dunubta uu sameeyo isagoo waxaas uu doonayo qofkaas haduu aakhiro doonayo qofkaas waxa soo ka tagaya laakiin haduu aakhiro doonayn qofkaas wuxuu ku inda adeegaya waxa aan banaanayn oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu diiday inuu ku inda adeego oo qofkaas sida uu ku noolaado oo adduunyada uu ku noolaado man facala dalika faqad istahya min Allahi haqq al-haya qofkii inta sameeyana wuxuu ka xishooday Ilaahay subxaanahu wa ta'ala absidiisa dhabta markaana qofkii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka xishoodana Ilaahay uu ka xishoonaya oo malaa'igtu waa ka xishoonaysaa oo dadka wanaagsan waa ka xishoonayaan oo farajku Ilaahay subxaanahu wa ta'ala u furaya markaana waa khayr cad maaha in aad shaydaan waswaaskii uga tagtid macnaha koofar badan baa waxay dhahayaan war anigu intaas oo sanaan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala caabudanayo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaana muusin ibn qayyim ayaa laga sheegaa wuxuu ka sheekeynaya ibn jawzi sheekh weyn ayaa ka sheekeynaya wuxuu leeyahay waxa arkay nin weyn oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala cibaadadiisa kuucan wuxuu soo xaadiray meyd qof ay wax isku yihiin ama qof wax may wuxuu soo xaadir wuxuu arkay qof wax macnaha wax weydiisanaya ama dhibaato ku dhacdayo waxa uu maleeyahay in ay ahayd dhibaato ku dhacday dhibaato ku dhacday markay dhibaatadu ku dhacday ayaa waxa la yiri Ilaahay bari ayaa lagu yiri Ilaahay ayaa la barbari baa lagu yiri wiil yar baa ka dhintay waliba wiil uu wax u yahay ma awow uu ahaa wax saas ayuu ahaa bari ayuu yiri wuxuu yiri iska daa waxba bariineed Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuu naga qaaday intaas waan barnay isaga naga qaaday iska daa waxba bariine macnaha muxuu ka qoostay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala raxmadiisii ayaa ku qoostay waa ninka wanaagsan uu ka sheekeynaya hadana baryadii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayuu diiday wuxuu ku leeyahay intaas oo sana bariyay wiilkii yara Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu iga qaaday oo wiilka maada dhalay awalba awood u hayd waxba u ahayd oo umaad dalin oo sulbigaaga iyo macnaha caruurtaada aad aabaha u tahay maaha mid kale Ilaahay subxaanahu wa ta'ala de haduu qaado ilmaha yar haduu qaado de Ilaahay subxaanahu wa ta'ala awal bisa keenay Soomaha adigu jawaabo badan qofkaas bala siin kara laakiin qof uu dhalin oo isagu uu dhalin oo yahay uu nin kala dhalay ninka uu dhalay ayuu wuxuu ku leeyahay iska daay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxa barinay anaga baranayo wiilkii yara uu naga qaaday markaana waxaas waa dhaqan xumo qofku inuu iska cibaadeysto maha ha cibaadeysto laakiin qofku akhlaaqiyadka waa inuu ku takhasusaa akhlaaqiyadka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala loo gaarayo akhlaaqiyadkaas oo dhan waa inuu ku takhasusaa nabiga sallallahu alayhi wasallam isagoo asxaabta oo kala tirinaya boosaskoodii iyo maqamkoodii ayaa wuxuu ku leeyahay arhamu ummati bi ummati Abu Bakr ummadayda waxa ugu naxariis badan Abu Bakr macnaha Abu Bakr wuu u naxariis badan yahay dadka ummadana wuu u naxariistaa markaana rasuulku sallallahu alayhi wasallam u fiirso qofkii naxariista ummadana wuu u naxariisanaya daliilkaas uu leeyahay laakiin qofkii naxariista ummadana u naxariisan waaya qofkaas waxa ogtahay in macnaha
una naxariistiisu ay khiyaaliya been tahay. Naxariistuna waxaa laga sheekeynayaa tan raad kale ee maaha qof iska naxariisto qofka macnaha mar soo booqdo qofka hadal ku dhaho waxa maaha qof naxariista taa laga wado taas qof kasta uu sameyn karaa qof kastana kii xumaaba xitaa sameeya laakiin naxariista u fiirso Abu Bakr naxariistiisu maxay ahayd uu naxariis badnaa Soomaha hanti uu lahaa ilaa taariikhdu intay sheegtay 7 iyo 8 qof oo Bilaal iyo ay ka mid yihiin ayuu xureeyay كوده marka uu xureeyay hantidiisii ayuu ku xureeyay wuu u naxariistay wala cadaabay aad dadkii ugu darnaayay ee cadaabtu ay ku darnayd ay ahaayeen Quraysh markaana ay cadaabayeen gaaladu iyo kaafiriinta dadka mushrikiinta ay aad u cadaabayeen kuwii ugu darnaa ay ahaayeen wuu xusameeyay wuu xureeyay wuxuu sameeyay hantida nabiga sallallahu alayhi wasallam uu ku anfacay oo ku bixiyay oo diinta uu ku bixiyay hantidiisa uu ku bixiyay oo jirkiisa iyo naftiisa iyo hiilkiisa iyo fikirkiisa iyo wax kastaba uu ku bixiyay oo markay arabtii iyo kuwii mushrikiinta nabiga sallallahu alayhi wasallam markii uu dhintay oo nabiga sallallahu alayhi wasallam uu dhintay markay arabtii iyo kuwii ay ridooween ee diinta ka baxeen uu ku adkaystay inuu kuwa ridooway ee sakada diiday iyo kuwa kale uu la dagaalamo wuxuu ku yiri keligay baa la dagaalamaya hadii ay xitaa aan waayo qof ii hiliya markaana naftiisi iyo wax kasta muxuu galiyay diinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala buu galiyay umadiina si kasta buu ugu naxariistay laakiin se lagama wado qof hadalka ugu naxariisanaya hiilkiisa hadaa u baahatina aanan hiil aadan ka helin lagama wado qof naxariis badan oo sheeganaya inuu dadka u naxariisto la kuna xaasidaya oo xaqaaga iyo hantidaada iyo qaadanaya oo hadii ay dhibaato ku soo gaadho dhibaatadaas aan taabanayn waxaas lama sheegay waxaas waa iska hadal baa dhaha laakiin waxa la doonayaa qofku markuu naxariisto inuu ummadana naxariisto waliba ummada ficliyan laga helo oo naxariisto wa ashaddahum في أمر الله سبحانه وتعالى عمرنا النبي صلى الله عليه وسلم حيري كأوجو درن أمرك إلهي سبحانه وتعالى حق إلهي سبحانه وتعالى وإلهي سبحانه وتعالى خلافين هذا الكيس كأوجو درن وأصدقهم حياة عثمان كأوجرون تبضن حشوتك كأوجرون تبضن عثمان وأقراهم لكتاب الله ابن كعب كأوجو قرآن كبضن أما وآخرس كبضن قرآن وحوي أبي ابن كعب وأفرضهم سيد ابن ثابت كأوجو علم فروت كأوجو بذيء أوجي قانا وحوي سيد ابن ثابت وعلمهم بالحلال والحرام كأوجو علم قبضن لنا حلاشة يحاران تبع وحوي معاذ ابن جبل ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة النبي صلى الله عليه وسلم وحليه أمت كسته وحليه أمين كأمتنا وحويه أبو عبيدة من جرحوي مركنا واسداس النبي صلى الله عليه وسلم ساس أترنيي تذكر وجوه حشوت كبدن وحويه وعثماننا واتو النبي صلى الله عليه وسلم إن حشوت كمركز توكو أماني واتو حتى ليه جري وحوي النبي صلى الله عليه وسلم مركو كحشوضي واتي مركي لويدي محادو كحشونا سا واتو النبي صلى الله عليه وسلم يجري محانو حشون وينين أي ملائكتو كحشوتو مركنا قف كستوى قفك وكحشوت بدن هاي إلهي سبحانه وتعالى يا ملائكتو way ixtiraamaano macnaha way ka xishoodaano qofkaas macnaha wala weynaya markaana waa sida nabiga sallallahu alayhi wasallam sidaas ayuu ugu tirinayaa fadliga ay leeyihiin asxaabtiisu oo fadligoodii buu sheegaya oo asxaabtiisa macnaha nabiga sallallahu alayhi wasallam uu ku faanaya fadliga iyo wanaaga ay leeyihiin maaha sida kale ay leeyihiin qof arkasa umada uu ugu sareeyaa ama ko ugu sarsareeyo ku jira haddana qofkii uu fadli ku arko waxa laga yaabaa inuu xaasinimo iyo balaayoyin uu daba dhigo marka casharkeenu waxaan ku soo gagabeynaa inta insha Allah ta'ala cashar kaliya ayaan ku soo dhameystirnaa baabul xayaa xishoodka intaas ayaynu ka dhigaynaa saad insha Allah ta'ala Ilaahay subhanahu wa ta'ala haynu waafaqiyo dikayo annagaba